waxaa ka war helay dhowaan in xubno ka tirsan baarlamaanka ay keeneen yiraahdeen mooshin ayaan ka gudbinaynaa madaxweynaha. waxaan mar walba sidii aan hore usoo dhaweey jirnaba baarlamaanku iyo xildhibaanadu in ay gutaan waajibkooda dastuuriga ah sida waafaqsan dastuurka waa arrin soo dhaweyn mudan mar walba tixgelinteedana leh, aniguna aan aad iyo aad u weyneynayo. waajibkaas dastuuriga ah waxaa loo dejiyey in dadka Soomaaliyeed iyo masaalixdooda iyo wanaagooda iyo dawlad dhisidooda iyo duruufaha gaarka ay ku jiraan siday uga bixi lahaayeen, laakiin marna looma dhisin in uu carqalad noqdo ama caqabad noqdo. waxaa muhiim ah in shacabka Soomaaliyeed ogaadaan in tallaabooyinka qaarkood ee la qaadayo xilligan lagu jiro dhammaadkii muddadii dastuuriga ahayd ee dowladda federaalka ee Soomaaliya inay curyaaminayso ama curyaamin karto waxyaabo badan oo wanaag ah. hannaanka wada tashiga iyo baadigoobka heshiis ay hay-adaha dastuuriga ah iyo shacabku ka yeeshaan hannaanka looga gudbayo 2016 waxaa asal u ah kalsoonida iyo is-aaminaadda iyo wada tashiga shacabka Soomaaliyeed oo ay horkacayaan ama matalayaan hay-adihiisa dastuuriga ah. qabyatirka dastuurka oo hadda meel xasaasi ah marayo wuxuu u baahan yahay ilaalin iyo maareyn. taabagelinta federaaleynta dalka oo iyaduna meel gabagaba ah hadda maraysahay waxay u baahan tahay ilaalmo iyo ka taxadiris. habkii dimuqraadiyadda lagu gaari lahaana baarlamaanka federaalka ayaa sameeyey. sharciyada aan sheegayna, guddiyada dastuuriga aan sheegayna, dhammaan waxay ka soo baxeen waxay tahay waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa hawshaas muhiimka ah ee baarlamaanku uu u qabtay. waxaan rabaa inaan xusuusiyo oo keliya kuwo kale oo fara badan inay weli baarlamaanka hor yaallaan oo dalka Soomaaliya ee dib u soo kabanaya dowladnimadiisa ay u baahan tahay maanta, kuwaas oo khuseeya amniga, khuseeya maalgelinta iyo maalgashiga, khuseeya dakhliga dowladda iyo maxaanku idhaahdaa nidaamkeeda, khuseeya dhinaca siyaasadda iyo dimuqraadiyeynta dalka Soomaaliya. waqtiga aan haysanahay nooguma qaybsamo waqti aan isqabqabsano oo aan faraha isku fiiqno iyo waqti aan ku samayno shuruucdaas muhiimka ah ee dalkeenna iyo dadkeennu ay maanta u baahan yihiin. shacabka Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan baarlamaanka federaalka ah, waxaan mar kale ku boorinayaa kuna bogaadinayaa inay si midnimo leh oo soomaalinimo leh oo loo turaayo dalka oo laga waaya aragnimo qaadanayo waxyaabihii horay aan u soo aragnay u soo barannay inaanan mar kale dabanadii hore aan ku dhacnay aanan ku dhicin oo aanan qiimaheenna dowladnimo iyo qiimaheenna dadnimo ee muddadii lasoo dhaafay aan juhdiga badan iyo xoogga badan aan gelinay inaanan dib loo celinin. waxaan fursaddan rabaa inaan uga faa'iidaysto mar kale sidaan baarlamaanka u bogaadiyey inaan u bogaadiyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, dadaalka ay ku wadaan la dagaalanka ay ku shabaab. sidoo kale waxaan bogaadinayaa bulshada Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan beelaha Soomaaliyeed ee deegaanada kala duwan ee dalka ku nool ee istaagay ee yiri maya shabaab iyo dullinimada ay ummadda ku hayaan diiday ee maanta u taagan inay iska kiciyaan. waan bogaadinayaa, waxaanan u ballan qaadaynaa dowladda federaalka inay garab taagan tahay dagaalkaas ayagana dhinacooda ay uga jiraan. ciidamada amisom ee noo soo guursadaan aan bogaadinayaa. shacabka Soomaaliyeed guud ahaan, kii cashuur bixiyey iyo kii dagaalamay intaba, iyo kii maxaanku idhahdaye maalgashi ku sameeyey dalkan oo hantidiisa dib ugu soo celiyey dalka, intaba waan bogaadinayaa. Soomaaliya way dhaqaaqday, hore ayay u socotaa. dad aad u tiro yar oo carqalad wadaaye ma celin karaan Soomaaliya, mana haki karaan, wayna soconaysaa ilaahay idankiisa. waxaan leeyahay hay-adaha dastuuriga ee federaalka ah waajibka iyo waxa dadka Soomaaliyeed ay ku sugayaan ha ku mashquulaan, yaanay ku mashquulin waddo shalay lagu habaabay oo lagu dhumay oo laguna macno beeray maanta dib yay u noqonin. taariikhda ayaa qori doonta dadka waxaa ka shaqeeya. dadka maanta wadane waa la garanayaa taariikhda ay Soomaaliya ku dhex leeyihiin ee dhinaca siyaasadda. yaanan shacabka Soomaaliyeed iyo baarlamaanka iyo dowladda qaybaheeda kala duwan
yaan lagu kadsoomin aan leenahay soomaaliya guul iyo wanaag ayaan u rajaynaynaa way guulaysatay inta dhammanna way guulaysanaysaa qodobka ugu dambeeya dalka Soomaaliya u waxaana wax 100% afka qalaad lagu yiraahdo perfect luqadda ingiriiska lagu yiraahdo ma qabno mana ku dacwoonayno laakiin waxaan cod dheer aan ku celcelinaynaa ku dacweynaynaa shacabka Soomaaliyeed iyo dawladdiisu inay horumar sameeyeen oo ay hor u socdeen aanay ogolaan doonin in jalaafo loo dhigo aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhalinyaro waa mahadsantihiin mar kalan su-aalaha iyo discussionka isugu imaan doonaa waa idin mahad celinaya waqtiga dheeraay iyo joogteen waa ku mahadsantihiin